kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa Warlalice Media saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qodobada aad daawo doontaan haddii Allah wadda laga helo waxaa ka mid noqonaya hogaamiyaha Ahlusunna oo markii ugu horeysay ka hadlay dagaalkii Guraceel iyo qorshaha Ahlusunna eedayn culusna dusha ka saaray dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo Midowga Afrika oo kulan isugu yimid kadib ceyrintii ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsanaa Soomaaliya maxay ka wada hadleen halkan ayaad ku daawo doontaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo go'aan culus ka soo saartay dhalinyarada muuqaalada baalmarsan dhaqanka ku soo gudbisa baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok siciidani oo isbedel weyn ku sameeyay hoggaanka ciidamada maamulkiisa maxay tahay sababta xilligan ku soo aadisay isbedelkan halkan ayaad ku daawo doontaan haddii ay tahay saaxiib markii ugu horeysay ee soo daawato channelkan saar subscribe gambalaalka furo sina share garay si ay u gaaraan asxaabtaada kale sidoo kale nagala soco barta aynu ku leenahay Facebook ee Warlalice Media hogaamiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaaca Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa tan iyo soo laba kaclayntii ururkiisa waxa uu markii ugu horeysay wareysi ka bixiyay kaasi uga hadlayo dagaalkii ka dhacay degmada Guraceel iyo mowqifka Ahlusunna wal Jamaaca ee ku aadan waxa ay ka damacsan yihiin dawlad goboleedka Galmudug isagoona dawladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay inay ka dambeysay dagaalkaasi Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax oo wareysigan siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxa uu ugu horeyn sheegay inay sii wadi doonaan fikirka ay ku shaqeynayeen ee ahaa inay shacabkooda u hayli doonaan markasta ay u baahdaan isla markaasina ay ka go'an tahay inay dalka ka ciribtiraan al-shabaab Macallin Maxamuud ayaa nasiib darro ku tilmaamay dagaalkii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay degmada Guraceel kaasi oo ku sheegay inuu ahaa dagaal gardarro ah oo iyaga lagu soo qaaday waxa uu eedayn culus u jeediyay hogaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaal ay wadaan dad khaas ah ayuu ahaa culimaaddinka Ahlusunna wal Jamaaca dagaal ma bilaabin marka dagaalka la bilaabay ziyaaro mashaaikhdooda ayay wadeen ayuu yiri Macallin Maxamuud si gaar ah waxa uu eedeeyay dagaalkaasi taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaye Yuusuf Raage oo uu ku sheegay inuu hogaaminayo dagaalkii ka dhacay degmada Guraceel 23 ilaa 26 bishii hore ee Oktoobar dagaalkaasi ayaa galaaftay saraakiil iyo ciidamo labada dhinac isugu jira waxaana Macallin Maxamuud uu mas'uuliyadda dusha ka saaray dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug horta marka hore waxa ay dadku aqoonsaneen inaan meesha joogi jirnay aynuna dawlad ka ahayn meesha muddo 12 sano ah muddadaasi gudaheedna wax al-shabaab ay soo galin 12 kaasi dadkii meesha joogay ciidankoodii xagee buu jiraa waxyaabaha laga been sheegay waxa ka mid ah ciidan urursi bay galeen maxaa la ururiyaa ayuu yiri Macallin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax hogaamiyaha guud ee Ahlusunna wal Jamaaca inta uu socday wareysiga Macallin Maxamuud oo siinay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay inuu aqoonsan yahay jiritaanka maamulka Galmudug isla markaasina uu wax duulaan ku ahayn maamulka Galmudug hase yeeshee uu doonayo inuu deegaankiisa ku noolaado waxa uu intaasi ku daray Guraceel waa gurigaani Dhuusamareeb waa gurigaani anigaan kula hadlaya waan ku dhashay Sheekh Maxamed Shaakir wuu ku dhashay xagee ka timaada wax dawlad la yiraahdo oo ku dhahaysa dadku kuma noolaan karaan guryahooda ayuu yiri mar uu soo hadal qaaday dagaalka al-shabaab waxa uu sheegay in Ahlusunna ay tahay awoodda kaliya ee gobolada dhexe ka ciribtiri karta kooxda al-shabaab waxa uu ku gacan saaray in arrintaasi ay tahay shaqo u taala dawlad goboleedka Galmudug oo hoos tagta dawladda federaalka ee Soomaaliya Macallin Maxamuud ayaa sidoo kale beeniyay wararka sheegaya in Ahlusunna ay taageero ka hesho maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda Iran waxaana hadalkaasi ku tilmaamay kuwa lagu qoslo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Maxamed Xasan Xijaar ayaa waxa uu si adag uga hadlay muuqaalada anshaxumada ah ee lagu baahiyo baraha bulshada gaar ahaan barta TikTok iyo burcadda dhaca ka geysata degmooyinka magaalada Muqdisho kadib kulan uu la yeeshay taliyaasha ciidanka booliska gobolka Banaadir
Taliya Xijaar waxa uu sheegay in muddooyinkii dambe ay soo bateen burcadda dhaca ka geysata magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dadka shacabka ah ka furta taleefanadooda iyo agabka kale ee ay gaarka u leeyihiin, isagoona ballan qaaday in tilaabo degdeg ah ay ka qaadi doonaan hay'adaha ammaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale Taliya Xijaar ayaa waxa uu ka hadlay muuqaalada anshax-xumada ah ee lagu baahiyo baraha bulshada, gaar ahaan barta TikTok oo uu carabka ku dhuftay, isagoona ku amray saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliska, inay wax ka qabtaan dadka muuqaalada anshax-xumada ah soo geliya ama ku soo bandhiga aaladda TikTok. Kulankan ayaa waxa iskugu yimid saraakiisha ciidamada booliska, isagoona uu shir gudoominayay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Genaraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Taliya Xijaar ayaa sheegay in muddooyinkii dambe ay muujiyeen dadaallo xooggan, taasi oo suuro gelisay in wax badan laga qabto ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagoona ballan qaaday inay sii adkeyn doonaan ammaanka xilliga kala guurka ah ee dalka uu ku jiro. Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee Gudoomiyaha Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen dhowr arrimood. Qoraal ka soo baxay xafiiska wasiirka ayaa lagu sheegay in labada mas'uul ay kulankooda diiradda ku saareen arrimaha ammaanka, doorashooyinka dalka ka socda, waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya oo ah dhabaha qura ee lagu gaari karo xasillooni, amni iyo dowlad dhiska Soomaaliya. Waa sida lagu sheegay qoraalka ay soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri kulankan waxaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka ka dhacayay iyo sida loogu baahan yahay in si wadajir ah looga shaqeeyo sidii loo midayn lahaa dadaalada lagu taageerayo qorshaha kala guurka ee Soomaaliya, iyadoona laga duulayo sare u qaadista heerka diyaargarowga cutubiyada ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya si ciidamadu ay u noqdaan kuwa dhufays iyo gaashaan u noqda qaranka. Kulankan ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud iyo wakiilka Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay 4tii bisha November ay 7 cisho u qabatay inuu dalka uga baxo Simon Mlonga oo ahaa ku-xigeenka Midowga Afrika ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa Simon Mlonga ku-xigeenka ergeyga gaarka ee Midowga Afrika ku eedeysay inuu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsanayn waajibaadka AMISOM iyo istiraatiijiyadda amniga Soomaaliya, waxayna ku amartay inuu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahood ah. Ilwareedyo ka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa sheegay in Mlonga uu ku kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin arrimo dhaawacaya qarannimada Soomaaliya oo ka dhan ah siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah madaxda Soomaaliyeed, jaajuusidda hay'adaha shisheeye iyo sidoo kale qodobo kale. Xog cusub oo aynu helnay ayaa sheegaysa in arrinta dhaawacaysa qarannimada Soomaaliya ee lagu eedeeyay Mlonga ay tahay inuu caqabad ku noqday qorshaha kala guurka Soomaaliya oo ah isku dayga dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in AMISOM ay kala wareegto amniga dalka, isla markaasina ay ka baxaan dalka ugu dambeyn sanadka 2023. Guud ahaan saaxiibayaal, intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa war wixii naga soo gaaray Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. haddii ay tahay markii ugu horeysay channelkan soo booqata, saar subscribe gambalaalka fura, siina share garay si aan u helno saaxiib wanaagsan oo adiga oo kala mahadsanidin.